wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabduqaadir Maxamed Nuur Jaamac oo uu weheliyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda ayaa maanta xarunta wasaaradda gaashaandhigga waxa ay ku qaabileen qunsulka safaaradda Masar ee Muqdisho ahna u qaabilsanaha arrimaha militariga ee Masar oo wasaaraddaas booqasho ku tagay. wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka iyo qunsulka ayaa booqashada kadib waxa ay yeesheen kulan ay kaga hadleen iskaashiga iyo xiriirka qotada dheer ee labada dal u dhaxeeya iyo sidii labada dowladood ay gacan isaga siin lahaayeen amniga iyo la dagaalanka argagixisada oo labada dalba ay dhib ku hayaan. wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabduqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa kulanka waxa uu ka sheegay sida ay uga go'an tahay in dowladda Soomaaliya ay dagaal adag la gasho argagixisada iyo dhismaha ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya oo dagaalba hadda kula jira. kulankaas markii uu dhammaaday ayaa isla wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya waxaa kulan kale ku qaatay kusimaha safiirka Suudaan ee Muqdisho ahna qunsulka safaaradda. kulanka markii uu bilowday ayaa qunsulka waxa uu dhambaal hambalyo ah uu ka siday wasaaradda gaashaandhigga dalka Suudaan waxa uu markaa ku wareejiyay labada wasiir. dhambaalkaas kadib ayaa wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya isna waxa uu qunsulka uu ku wareejiyay dhambaal kale oo la xiriiray hambalyo uu markaa u dirayay 68 guuradii ka soo wareegatay markii la aas-aasay ciidanka Suudaan oo ku beegnayd 14 Agoosto. Cabdirasaaq Maxamed Faarax, warbaahinta qaranka.